koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa wuxuu yidhay xiidta meel xagaay badanay ku xustaa xawaal qumayay xiidta meel xagaay badanay ku xustaa xawaal qumaya warnimayahow maanta kaftankii madaxda miyaad wadaan geeli ay isugu jireen awliiseen war may ee kaftankii kalamaanoo kulul baanu wadnaa weligeed minay wada taqiin wadana doonaysay oy wada jecloydoo bulshadu weysay baa jiree waa yaabay xaggee maray tolow mee waxgaradkii warnimayahow anugu waxaan dhihi lahaa hashaydii waqlaal iyo anaa horay wankaygii anigaa wuxuushta u shilalay wagad sacaygii weylihiiyo anaa waxarihii weer u laayacay anaa cayr u gacan wiifiyo way kan baan idhi waxaan maqli jiray wixii maanta i gaara anigaa isu geysta hadda hal walba shiraalkay isdhigtaa lagu qalaahe oo waxaad ka wadiin wixii maantana gaara ununkaa isu geysannay wilaayey koowareerti oo dhagansayhe meel sidaay u taala warnimayoo nin baa gabar jeclaaday kadibna waxaa la warniyo gabadhaanu waa gabar yar waana caatay ha kortay sug baa la yidhi kadibna waa u gabyey wuxuu yidhi bursaliid macaan ee markaan baasta kugu waalo biyalliina goortaad cabtaad barari doontaa biyalliina goortaad cabtaad barari doontaa anuguna waxaan yidhi kalamaan markhaatay ka tahay maanta saan nahay musuq maasuq iyo beeni waa meera saydaani kuwa magaca nala sheegta iyo maxamed diintiisa oo muuqnala iniyo mahsan baa jiraye u midooba daanihiinna waad macdin doontaan warnimayahow annagu waxaan leenahay 60 sano oo khibrad musuq maasuq ah warnimayahow labadaa ninoo musuq iyo maasuq layidhaah nimanaan soo wada shaqaynayna muddo dheer oo qaraabaa bay ahaayeene haddaan ka baqayaa kuwa shisheeyaa oo ka daran in naloo keeno aryaadaha qaada iyo qarshe ununkaa qaraabahe shisheeya xownugu aqabaha sharcigii waxaa loo bedelay nin ajnabi yihi inuu bankiga madax ka noqdo berrina soonta sharciga la bedelo soomaaliya shisheeye iyo sokeeyeba madaxay ka noqonayaan soo lama dhihi karo haddiiba aan ajnabi loo ordiyo qolo la aalaysto marna laga ajoonin ma jiro sharaf leedaa warnimada soomaalidu 4.5 wax ku qaybsatae ninkaan ajnabiga oo laleeyaha bankigaa la keenayaa isagu waa qolodee war 0.5 ka dhigaya yaa bankiga dhaxawaatan laysku haystee bankiga ganacsiga guddoomiyihiisa aaway eebaagoo war ma haysiin baadsanguuri mihi la dhihi jiray ee jubbada hoose ka mid aheeday tii ka dhacday dhagaa farti sidii loo geliya waa laga bixi waaye war malaadimay arreela'adimi maheyda waa wareey aa la dhahaye idhegansadha maynaara dhigay waxaan maqli jira ninba waa markiisa masma kula koray sidii qarixii shoobe dadku u gubteen shabaab u gubtayaa la arkay ayakoo baabuur wata oo ciidankii sanguuni jooga inya weerareen nashiida ku dhaantay haaya korkaas dhibac guduudanuu cirka faasaq uga soo tiri eebaagoo dhegay faraa la yiriyo dahe dilaayow dilaa ku dambeeya miya warnimayow qaraxiisoobe masiibo qaran buu ahaaye tani makhay qaran ba eebaagoo siday u gubteen dhuxulo maraayay u ekaadeen amba murxabun war ma roob maraykan baa ku da'ay maxaawanadii maraykanka gaartay warbuu aal idaacadda ay ku lahayn ayaa cilka looga soo dhacay wariyaashoo dadkii ridinayo aan ridin cilka uga soo dhacay kadibna saasaa lagu ridiyey warwariyaasha shabaabka laafay weerarkii baarsinguul ay tabinayeen ayagana laafay loo tabay warnimayo wabseedada shabaabku xalay waxay qorayeen maraykanka oo soo weeraray soomaaliya halkaasna ku duqeeyey dad soomaaliyooda baabuur saaran been badan ama shabaabaa soomaaliya warnimayo waxaa la yidhi ninkaan camreyne ceel bagay ashkaa wax looga soo ridaa warnimayo hay-adda nabad sugidda waatuu taliyihiisa xasiloo madaxweyne isu sharaxay marka mataliye ku-xigeenkii fahad yaasiin ayaa meesha taliye ka ah weli aryaa waa waalantahe fahad yaasiin asagaa taliyana looma naqdo war fahad asagaa xuseen diray kuna soo noqon ma nabee ma ku dirayna waa yidhi warnimayahow booliiska soomaaliya ayaamahan facebook update bay ka yihiin maalin dhaweyd facebooka waxaa la soo dhigay nin xaaskiisii ay murmayaan way soo xireen waxaa ka dambaysay munake iyo walaasheeda xildhibaan dhaawacay facebookna la soo dhigay wayna xireen daraad
u dambaysayna askari laaluush qaadanaya ayaa facebooka la soo dhigay wayna xireen markaa khiyaaray facebooka iska ilaaliya waa lagu jiraa waraa wiilka bajaajta wado askarigii dilay facebooka waa la soo dhigay soomana aysan xirin aryaab waan cabdooda waay oo ka tirsanay kooxda heegan ciidanka booliska Soomaaliyeed asagoo dhabarka ka jabanaa facebooka la soo dhigay booliskuna xabad uma qaban ciidamada wixii halis ka dhigay lagu hareeraysan ma la haybshay waa lama horaan tali soo gaanshay war madaxweynihii cusbaa ee Puntland wareegtooyin badan buu soo saaray tii u dambaysay qaadku canshuurtii ku kordhiyey diyaaradiina waa istaageen marka Puntland 6 maalmood laga maqaylin baa leeyahay Puntland dantaday garanayaan war maxay dantooda gartaan illa fur iyo jabada iyo biyo raacis iyo qarax midnaba ma cunaane warnamayo hanfareesh ee wasiin haaya madawiina haafa maylka azumay ale masaarki lafta garan haaf ma yarey marka inaadeerow gaari aniga meesha ma aadahayo mana aadi karo sababtoo ah ninka roobow ahaabaa lagu shirqoolay waa taasoo laygu shirqoolaa ma aadi karahayo yaari madawiinu dhanwaana war madaxweyne xaaf meeshuu Nairobi ka deganaa waa hoteelkii la weeraray wuuna ka badbaaday weerarkii warnamayo waxaan ku riyooday ra'iisul wasaare Khayro gabyaya markuu arkay xaaf hoteelkii la weeraray ka cararaya wuxuu yiri xaaf ma cararay waa ka afxuma la xiro weynay madaxda qaranka yaanan laga been abuurin kuwa gobolladana ra'iisul wasaare qaranku oo ka soo bilowda tuulo degmo ilaa iyo gobol baadiyahana ra'iisul wasaare baadiyahana adiga istaag shirka ka bax waradeero qarankii Soomaaliland bay lowdeereen maxaana aamusnaa mudana hayr maareeye hawsha aad ka hadlaydo kuma qusaydo ee adigu ka adkaa wasaaradda aad xil saaran tahay warnamada war ma haysaan ayaantan Soomaalidii cudur isdil leeyahay ku dhacay qaar maalin kasta bay isqarxiyaan baladweyne nin baa inta gabar loo diiday buu isdaldalay Sacuudigana mid baa dalqa iska soo tuuray tarxiil ka baqayay wiil taariiray oo Liibiya joogana dabu isku huriyay markuu Talyaaniga u bixi waayay kan iskuba kan sartiiska soo tuur hay xanuun arkeen shacabku hadduu asagu isdilo shabaab la dilayo ciidanka booliskuna mootooyinka ku dhex dilaan maxaa ka haraya talo war badanka kanowshan hab oo yeesmeen ee waa heeraas haana salim taliye war Soomaali haday wax garato sinacan kuma jirteen laga tag sinaca adaa ku jira yaa kala u muushihe heligiisba ninkii tiisa gabaa dadka eedeeya war badan dumar talada busniyaaba war wallahi idin xafil maayo xabad meel barakaysan tage